kulan wacan saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha golahan oo kale ayaynu ka ambaqaadnaa halkan waxaynu kusoo qaadanaa waxyaabaha isboortiga ka cusub ee maalinkaasi taagan sheekooyinka Yurub iyo sidoo kale kulamada laga ciyaarayo Copa America wararka suuqa kala iibsiga ayaan barnaamijka maantaynu kusoo qaadan doonaa farsamada iyo kaamiradu waa Fuad Maxamed Cabdulqaadir Xuseen ayaan ahay haddii aynu ku bilownana weli waxaa soconaya tartanka Euro waxaana maanta la ciyaari doonaa kulamada qaar kamid ah gruubyada iyadoo oo kulamadaasina ay noqon doonaan kulamada ugu dambeeyay ee wareegga gruubyada tartanka Euro 2020 waxaa la ciyaari doonaa kulamada ugu dambeeyay ee wareegga gruubyada waxaana maanta la ciyaaraya laba gruub kuwaas oo kala gruubka B iyo sidoo kale gruubka C kulamadiisa ugu dambeeya ugu horeen caawa 7 fiidnimo waqtiga Soomaaliya waxaa soo dhici doona ama la daawan doona kulan ka tirsan gruubka C ay wada ciyaari doonaan xulka Netherland iyo sidoo kale North Macedonia halka xulka Ukraine na uu la ciyaari doono xulka qaranka kubadda cagta ee Austria gruubkaasi labadaasi kulan oo xiisaha leh ayaa laga ciyaaraya 7 fiidnimo ayaana caawa kulamadaasi la daawan doona 10 fiidnimo caawa marka saacadu ay tagtana sidoo kale waxaa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan gruubka B oo qayb ka ah kulamada ugu dambeeyay ee gruubkaasi waxaana ciyaari doona xulka qaranka kubadda cagta ee Belgiumka oo la ciyaari doona xulka qaranka kubadda cagta ee Finland Belgiumka labadii kulan ee ugu horeysay ama labadii kulan uu soo ciyaaray tartankan guulo waaweyn oo soo gaaray Lukaku iyo xulkiisa Belgiumkana waxay qayb ka yihiin waqtigan xulka loo saadaalinayo ku guuleysiga tartankan ee Euro 2020 kulanka kale ee groupkaasi laga ciyaari doonana waxaa wada ciyaari doona xulka qaranka kubadda cagta ee Denmark wuxuu la ciyaari doona xulka qaranka ee dhigiisa ee Russia kulankan wuxuu yahay kulanka ugu dambeeya ee groupkaasi laga ciyaarayo America hadii aynu fiirinana kulanka laga ciyaarayo waxaa la ciyaari doona hal kulan oo xiiso badan oo ka tirsan Copa America waxaana ciyaari doona Messi iyo xulkiisa Argentina waxay wajahayaan xulka qaranka kubadda cagta ee Paraguay Argentina labadii kulan ee soo ciyaartay kulankii furitaanka waxay wajaheen jili barbardhacay la dhaafayeen oo gool ay la hormareen laga daba yimid halka kulankii ugu dambeeyay ama ay ka ciyaareen kulankoodii labaad tartankaasi ay wajaheen xulka qaranka kubadda cagta ee Uruguay gool waxba ay ku soo dhaafeen caawa fursad saddexaad ama kulankoodii saddexaad ay ciyaarayaan xulka qaranka kubadda cagta ee Argentina marka caawa Paraguay hadii ay ka badiyaan xulka qaranka kubadda cagta ee Argentina groupka banaanku ka yaala oo wuxuu qayb u ka yahay xulalka ka gudbaya ama u gudbaya wareegga xiga ee tartankaasi Argentina ee ciyaaraysa Copa America wararka suuqa hadii aynu fiirinana saaxiibayaal waxyaabaha ka cusub maanta kooxda kubadda cagta ee Manchester United ilaa hadda waxaa ku dhagan laacibkooda qadka dhexe ee Paul Pogba laacibkan ayaa sanadihii ugu dambeeyay hadalhaynta kooxda Manchester United ee suuqa kala iibsiga aad u heystay laacibkan wuxuu doonayaa in garoonka Old Trafford isaga dhaqaaqo waxaana uu doonayaa koox uu horumarkiisu hore ugu sii wadan karo sida kooxda kubadda cagta PSG iyo sidoo kale inuu ku laabto kooxdiisa kubadda cagta Juventus oo markii hore Manchester United uu kaga soo dhaqaaqay marka laacibkan hadda suuqa kala iibsiga hadii hadda Manchester United wuxuu doonayaa in ay fasaxdo laacibka halka Manchester uu sii doonayso in laacibka ay sii haysato Ole Gunnar Solskjaer kooxda kubadda cagta ee Manchester United tababareedana laacibkan shaxdiisuba afka uu ka yahay laakiin laacibku wuxuu ku dhagan yahay in la fasaxo garoonka Old Trafford laga fasaxo Manchester waxay doonaysaa laacibku inay siiso heshiis cusub oo soo bandhigaysa inuu heshiis cusub qalinka ugu duugay doonaysaa marka asiguna uu ka diidanyaa marka hadda waxaa socdo qorshe Pogba ugu la xaajoonayso kooxda Manchester United waxa ay leedahay waxaynu ku balan qaadeynaa ama inuu ka dhigeynaa laacibka Premier League mushaaraadka ugu badan ka qaata hadda heshiis cusub saxiixda asiguna waa ka diidanyaa taasi oo ku madax adeegaya marka waxa laga yaabaa hadda Pogba inuu aqbalo lacagahaas waalida ah ee laacibkan loogu soo bandhigayo garoonka Old Trafford inuu sii joogo waqti dheer ayaana macquul ah isla kooxda Manchester United wararkeeda suuqa intaynu ka bixina saaxiibayaal kooxda kubadda cagta ee Manchester muddo waxaa la xiriirinayaa daayarka kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund iyo xulka qaranka kubadda cagta ee England ninka lagu magacaabo Jadon Sancho laacibkan Manchester United
waxa ay aad kooxda kaliya ee ula socota xaaladiisu Manchester waaye Borussia Dortmund lacagay ula tagaysaa waa lagu soo celinayaa mar kale laabanaysaa waa lagu soo celinayaa yacni kooxda Borussia Dortmund laacibku waxay doonaysaa in dhaqaale ay ka sameyso lacag badan ee ka fasaxdo hadii uu laacibka kooxda BVB lagu magacaabo hadii uu doonayo inuu ka tago lacag badan inay ka hesho doonaysaa kooxda Borussia Dortmund kooxda Manchesterna lacag yar ay qaadaysaa kooxda u geynaysaa waa lagu soo celinayaa marka hadda waxa leeyahay kooxda kubadda cagta Manchester United dalabaadyo dhowr ah oo lagu soo celiyo lacag ah oo kooxda Borussia Dortmund ay u geysay hadda waxay laacibkan qorsheynaysaa inay ku soo qaadato 77 milyan hadda waxay leedahay Borussia Dortmund lacagaha qaata laacibkana siiyo Borussia waxay leedahay ayadana 100 ilaa 150 lacag macquul aad maskaxda Manchester United kaga badan ayay Borussia Dortmund doonaysaa laacibkan inay ku soo fasaxdo marka Manchesterna kama yeelayso kama niyad jabeyso laacibkan sidii ku leeyahay markasta way u dhaqaaqaysaa daayarkan kubadiisu aad ay u fiican tahay waagiisii hore kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayuu kaga soo baxay ayuu kaga soo dhalaalay laakiin kubadiisii iyo waxtarkiisu waxa uu ku muujiyay Jarmalka kooxda ka dhisan ee Borussia Dortmund hadda wuxuu qayb u ka yahay laacibiinta xulka qaranka kubadda cagta ee England ku metelaya tartanka Euro 2020 kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain waxay xiiseynaysaa in Real Madrid ay kala soo saxiixato daafaca la yiraahdo River Varane laacibkan ayaa wararku sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid uu ka dhaqaaqayo laakiin kooxo dhowr ah laacibkan doonaya hadda PSG meesha ku soo beertay PSG ayada lacag afka hore kala tahay xidigaha iyo sidoo kale kooxaha Wijnaldum ee Barcelona ka afduubatay hadda laacibkan Varane lagu magacaabo Manchester aad ugu sii dhawaanaysa hadda waxay doonaysaa mar kale in afduub kale ay ka sameyso suuqa kala iibsiga wararka kooxda kubadda cagta ee Rome oo tababaro cusub Jose Mourinho dhawaan la wareegtana hadii aynu fiirinana tababaran wuxuu doonayaa in kooxda isbedel weyn uu ka sameeyo xilli ciyaareedka dambe Talyaaniga oo Inter Milan xilli ciyaareedkan ay ku guuleysatay wuxuu doonayaa in kooxda Roma meel fiican uu ka keeno Talyaaniga horyaalkaasi marka tababaran oo kooxo waaweyn la soo shaqeeyay min Spain ilaa Premier League wuxuu doonayaa laacibiin badan uu la soo shaqeeyay jiro marka kooxda Rome in ciyaartooy khibrad ku leh horyaalka Europe oo kale Champions League Europa League oo kale ayuu doonayaa in kooxdaasi Rome uu geeyo hadda laacibkii dhawaan laga fasaxay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ee Sergio Ramos ninka lagu magacaabo ayuu tababaran aad u doonayaa in kooxdaasi uu geeyo laacibkan kooxda Real Madrid waa iska fasaxday ilaa hadda beeca xurto suuqa isaga yaala warar waxay soo baxayeen sheegayeen in kooxda kubadda cagta ee Manchester United laacibkan macquul baa tahay inay la wareegto marka hadda tababara Jose Mourinho ku soo biiray tababaran iyo Ramosna muddo soo wada shaqeeyeen Real Madrid ayuu tababaran Jose Mourinho lagu magacaabo waqti fiican uu ku soo qaatay marka hadda wuxuu doonayaa Roma inuu kula midoobo laacibkan أنا نجنت أخياري ما أنت برامج كعيارها تاني إيوه برامج عينكيسا وكلا أنت إنه هبدا كجنب بدو بدونا معنا الله